Tanzania waa dal cajiib ah oo hodan ku ah taariikh, dhaqamo kala duwan, iyo qurux dabiici ah. Waa dhul isku darsaday buuro dhaadheer, harooyin ballaaran, kaymo qurux badan, iyo xayawaanno duurjoog ah. Ma ogtahay in Tanzania ay hoy u tahay xayawaanada duurjoog ee ugu caansan Afrika? Ma rabtaa inaad ogaato dalka ay dhacdo buurta ugu dheer ee Afrika? Maantay waxaan kuu haynaa xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan dalkan dahabiga ah ee Tanzania. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Waxaan kaa codsanaynaa inaad rukumato kanaalkeena oo aad saarto subscribe iyo like, sidoo kalena aad la wadaagto saaxiibadaada. Xogta guud ee Tanzania. Tanzania waxay dhacdaa bariga Afrika. Waxay daris la tahay wadamada sida Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi, Kongada Dimuqraadiga ah, Zambia, Malawi, iyo Mozambique. Baaxadda dalkan waa 945,087 kiiloomitir oo square, iyadoo 61,000 oo kiiloomitir square ay biyuhu dul sabeynayaan. Waana dalka 31aad ee ugu dhulka weyn caalamka, iyo kan 13aad ee Afrika. Dalkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo midoobay, waana Tanganyika iyo jasiiradaha la isku dhaho Zanzibar. Qaybta ugu weyn ee dalkana waa dhulka weyn ee Tanganyika ee aan ahayn jasiiradaha. Dadka dalkan waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 70 milyan oo qof sanadka 2025. Waana dalka 22aad ee ugu dadka badan dunida. Magaalo madaxda Tanzania waa Dodoma, balse magaalada ugu weyn uguna dhaqaalaha ballaaran lehna tegada ugu weyn ee dalkan waa Darusalaam. Waana caasimadii hore ee dalka, taasoo laga bedelay caasimadaha Shiiha sanadkii 1974. Tanzania waa dhul hodan ku ah harooyinka, wuxuuna dhacaa aagga caanka ku ah harooyinka ee qaaradda Afrika, loona yaqaan African Great Lakes. Harooyinkaas oo dhaca gudaha ama hareeraha dooxada bariga Afrika, Eastern African Rift Valley. Quruxda dabiiciga ah ee dalkan. Tanzania waa mid ka mid ah dalalka qaniga ku ah duurjoogta. Waxaa dhaca Serengeti National Park oo ah meel caan ku ah socdaalka iyo ku soo hayaamida duurjoogta sida dameer farowga iyo cawsha. Waana hoyga The Big Five oo ah xayawaanada ay adag tahay ugaarsigooda. Waana libaaxa, shabeelka, maroodiga, wiyisha iyo lo'gesiga. Serengeti National Park waxay ka mid tahay liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. Dalkan wuxuu sidoo kale qayb ka leeyahay harada ugu weyn Afrika ee Victoria, waxaana la wadaaga Uganda iyo Kenya, iyadoo uu leeyahay dalkan qaybta ugu weyn ee harada oo ah 49%. Sidoo kale, dalkan wuxuu wax ka leeyahay harada Tanganyika oo ah harada labaad ee ugu qotada dheer caalamka, waxaana kaliya ka gundheer harada Baikal oo ku taala Ruushka. Harada Tanganyika waxaa dalkan la wadaaga wadamada sida DR Congo, Burundi, iyo Zambia. Tanzania waxay sidoo kale qayb ka leedahay harada Malawi, waxaana la wadaaga wadamada sida Mozambique iyo Malawi. Waana harada ugu badan ay ku nool yihiin noocyada kala duwan ee malayga, gaar ahaan nooca loo yaqaano Siklet. Dalkan wuxuu sidoo kale leeyahay buurta ugu dheer ee Afrika ee Kilimanjaro. Waana buurta kaliya ee iyadoo keligeed taagan ugu dheer adduunka, taasi oo aan lahayn silsilado buuro ah. Taariikhda Tanzania. Magaca Tanzania wuxuu ka yimid isku darka Tanganyika iyo Zanzibar, kadib markii labada gobol ay midoobeen Abriil 26, 1964. Waana labada gobol ee uu ka kooban yahay dalkan. Tanganyika waxay ahayd qaybta beriga ee dalkan, oo xornimada ka heshay Ingiriiska Diseembar 9, 1961, halka Zanzibar oo ah qaybta jasiiradaha ee dalkan ay xornimadeeda ka heshay Ingiriiska Diseembar 10, 1963. Kadib gacan dhiig ku daatay oo ka dhacay Zanzibar 1964, kaasi oo xukunka looga tuuray saldanadii Carbeed ee ka talinaysay Zanzibar ka hor gumaysiga iyo kadibba. Dalkan waxaa ka dhacay kacdoonkii caanka ahaa ee ka dhanka ahaa gumaystaha Jarmalka
ee loo yaqaanay Maji Maji. Julius Nyerere wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee midowga Tanzania kadib. Madaxweynaha hadda talada haya ee Tanzania waa gabadha Muslimadda ah ee Samia Suluhu Hassan. Dhaqaalaha iyo nolosha Tanzania. Dhaqaalaha dalkani wuxuu ku tiirsan yahay beeraha, halkaasi oo ay beeraan kofeega, shaaha iyo wixii la mid ah. Qodashada iyo la soo bixidda kheyraadka dabiiciga ah ayaa ka mid ah ilaha uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalkan, sida dahabka, diamond-ka iyo gaaska dabiiciga ah. Dhaqaalahan wuxuu sidoo kale si weyn ugu tiirsan yahay in ka badan 17% GDP-ga dalkana ka soo xarooda dalxiiska. Wuxuu kaloo ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalkan warshadaha ganacsiga iyo maalgashiga. Waxayna qayb ka tahay bulshada Bariga Afrika, Eastern African Community, iyo aagga suuqa xorta ah ee ganacsiga ee Afrika ee loo yaqaano African Continental Free Trade Area. Tanzania waxaa la rajaynayaa inay noqoto dal dakhliga dhexe ah, middle income country. Lacagta rasmiga ah ee dalkan waa Tanzanian shilling. Diimaha iyo bulshada. 55 ilaa 60% dadka Tanzania waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin Kirishtaan, halka 35 ilaa 40% ay Muslimiin yihiin, kuwaasi oo u badan dhulka xeebaha u dhow iyo jasiiradda Zanzibar. Waxaa sidoo kale Tanzania ku nool qowmiyado kala duwan, iyadoo qowmiyadda ugu badani ay tahay Sukuma, oo ah 16% dadka dalkaas. Qowmiyadahan waxaa si guud loogu qaybiyaa Bantu, Nilotic, Cushitic iyo San. Dadka dalkan waxay ku hadlaan in ka badan 100 luqadood, laakiin afafka rasmiga ahi waa Ingiriiska iyo Swahiliga. Tanzania waa dal leh dhul hodan ah, taariikh qoto dheer iyo dhaqaale kobcaya. Waa goob aad u wanaagsan oo lagu dalxiiso, la barto, sidoo kalena la maalgashado. Haddii aad rabto inaad indhahaaga ku aragto quruxda dabiiciga ah, la kulanto xayawaanada duurjoogta ah, ama aad korto buurta ugu dheer Afrika ee Kilimanjaro, Tanzania waa meesha saxda ah. Haddii aad jeceshahay barnaamijkan, fadlan like, share iyo subscribe saar. Mahadsanid.